وعلى جبل مسؤولية الأمور هي قضية العجزية اللي وعلى العجز على اليوم عياك العجز هو كل شيء مركز وعشان وحويا العجز ما كان بيحكي أصلا هذه أصلها أديك يبغى الولد أديك يبغى الولد وكان بيحكي تعيطها قيمة لو بيحكي تعيط مثلا نص بقول كان ولا بقول على بقول أروان تاعي بقول أروان تسوي العجز وتوش بيسوي وين بلطي في أروان تعاون في عليها لكن ما بقول تصرف كفاءة ولا كم تعاون كل لكن يبغى كمان بيحكي أريد أن أقرأ إسماعيلنا في دعوينا رفع وسن رفع مرتين أفضلكم بمضى لكم سيكون شغل الصوت أنا هذا بقول يقنطر يسوعي بقول يقنطر يسوعي يعني هذا فائدة إنه حدلوا أو هاي ولا حدلوا ما عملنا فائدة هاي ولا حدلوا وأنا وين أنا هلا ولا فائدة دونا بلواتر ولا فائدة دونا قطر ما خسارة دونا يعني نوع سوء إنه بتاعنا يراهلو ما كنا نسا مضاربة أو كذا أيوة الحب ولا لا يسمى حوالي المية ما كنا نسا ما كنا أكيد معلومة شيء أو كذا نسبه معنا بقول كاس أما بقول كاس كل شيء markii sanadka aakhirkeeda in noqotana faa'iido wixii ka soo baxa kun iyo shan boqol in noqoto boqolkiiba konton bay noo tahay caafiga ama adu boqolkii soddon baa le ana boqolkii toddobaatan baa le sidaas way heshiiska in laga dhigaa ama loo saxa hadday tahay qalab ama deyn tahayna deyntiisi baa u soconaysaa deyn kalenta waxba laguma darayo oo haddii kale dhibay noqonaysaa oo boqol baa ku siiyey boqol iyo konton baad ka dhigaysaa deyntii maya deynta kullu jarabka kullu qardin jaraba nafcan هذا هو المقال الإسلامي. ليه تبغى مباشرة تسكره إن يعني فائدة وقدرة. البعض يجيب أن يسوي عندي زاوية لا ما تكلم والله. كمان مثلا كذا ما يسوق بس يسوق كذا ما يسوق ويصير مهور هنا مع مدينة كذا قبيسك كذب وقدر كرا هو قدر كتابة كذا فقبيسك نحوه قضاء بطرس إذا واجب وحواجب نحوه كذا سنسا ويصير واجب ديك فهمتها ما كنا إسماع الصوت بعدين مرة إن شاء الله تعالى. آمين. سجود سهوي يعني فورمال سجود سهوي أول وقت شكله كانوا صلاة إحلال شكل كان نوع كسر أما من علاقة شكلي أو آخر كشكلي كان سجود كشكلي وحياة كشكلي وتكين إنسان أو سوية وتكين إنسان صدق أما أفر باشا كان كلاي صدق وكذا إنسان نافر بمشورة نافر بكذا إنسان ساسا يعني قوة إنسان كذبنا وسجود سهوي لما السجود لما السجود سجدتي سهوي كذبنا فالصلاة بالسلسل طبعا ما قرأنا كان ديتا أو حكم جرا أو شيء لا يا سرع كجرا غيابا أو واقعة أما ولا كان هذا هو كقولي ما بفاش الخلاص أنا محتاج ما قرأنا هذا ديتا أنا ديتا عالي عندما شيء ديتا عالي أصير هذا يشوفه ولا بسات هذا ما كنت أنا وماشي أقوى أما ماليزيا غير قانون العلماء اللي ماشي تطبيقية وحي وصار سنة عرفت خاص أنا وصلت كل هذا وهو أروح ومن الجواري هذا ثلاثي إن شاء الله. هي جرالة خاص. walaalkay ayaa wuxuu u geeyey waddan kale xaaskiisa waa waxyaalihii Soomaalidu sameyn
isxambaa isdheer walaashayga xaaskayga walaashayga waxyaala lamid ma lacagtaa shaqaystaa xaaraan laga qabay leedahay marka fiiri laba arrimood kala jira wey walaalka inuu xaaskiisa ku geeyo waa dembi waa been waana khiyaan taas waa dembi haddaad tagtay meeshii oo aad shaqaysatay iyadii shaqadaas iskuma leh shaqadaa shaqaysatay shaqa xalaala tahay wiilkaaga ku shaqaysatay xalaal bay ku tahay tii aad ku timida dembi bay ku tahay marka khalad camala saalixa waa qarsiin laba camal baad isku qabato midna bannaan yahay midna xaaraan yahay mid walbana dembigiisa ayaad qaadaysaa aabbahay ayaa igooyey aabbahay anaa gooyey aabbahay 3 sano anigu su-aasha ku qoran tahay ama ka baqaya an yatacaamala alsixir yani aabbahay baan gooyey horta waalidka sidiisa lama goyn karo oo waa dembi weyn yani qaadar raxim laa yadkhulu ljanna jannada ma galo qofka qaadar raximka marka laa yadkhulu jannata qaadic arrintaasu waalidka markay tahay iska wada qaraabo kale waalidka markay tahay waa kasii fog tahay haddii waalidku dembi ku jiro dembigiisa isaga ahay xataa gaalnimo hadda ku jiro iska laabaa kale gaalnimo hadda ku jiro adiga waa waalidka xiriirka uu kugu leeyahy oo gabadha markay u timi asmaa hooyadeed oo mushrikad ah oo gaala oy weydiisay arrinkaasoo kale inta ka shekeday hooyada xiriiri waana gaalo way ka shekeday marka gaalnimada dembi ka weyn ma jiro laysa bacda kufri dambun yaa dembi ka weyn gaalnimo ma jiro marka waalidka marna inaad guyso maaha laakiin gaalnimadiisa ha ku raaci ama sika ugu jira ha ku raaci ama dembiga ugu jira ha ku raaci ama ligu ugu jira ha ku raaci laakiin adiga waalidku ku yahay inaad guyso maaha isagoo gooyada taa adigu ma goyn kartid taasna waa inaad kala saarto ya baaraka allahu fiikum intaasaan ku dhamaynayna ducada soo dalbaday baan uga ducaynayna insha allahu tacaala ilaahi subxana wataala hayad barakeeyo sababadii iyo khayrkii iyo wanaagii aad samayseen dadka xanuunsan allah caafiyo dadka dhibaataysan dhibka allah ka dulqaado waqti insha alfaadooda lagu jirnaa dadka carruurtu ay maaragtay ka dhibaataysan tahay ka xiran tahay ilaahi subxana wataala uu soo daayo dadka duriyadaasi duriyadooda allah u barakeeyo dadka duriyada aysa duriyad saalixa oo khayr qabta allah siiyo ilaahi subxaana watacaala naxariistiisa ummadda soomaaliyeed ha ku soo dejiya meel kastoo joogaan dadka dhibaataysan dhibka allah ka dulqaado kuwa qaadadku qaadeen dhibaatada allah ka dulqaado ilaahi subxaana watacaala dhibaatada ha ka dulqaado gaajada allah ka dulqaado cudurrada allah ka dulqaado caafimaad iyo barwaaqo allaha ugu bedelo ilaahay caafimaad iyo dugaan iyo ifkaam ilaahay subxaana watacaala ha ugu bedelo dalkeena barwaaqo iyo nabadgelyo allah nooga dhigo ilaahi subxaana watacaala dalkeena barwaaqo iyo nabadgelyo allah nooga dhigo dalka muslimiinta oo dhan allah naga dhigo galaabaha iyo isnacaybka iyo kalqaysanaanta allah naga qaado ilaahay naga dulqaado walaaltinimo iyo isjacayl iyo midnimo allah nagu bedelo ilaahi subxaana watacaala weydiinyo oo dhan allah naga koryeelo khayr iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo isjeclaan iyo nabadgelyo allah nagu bedelo kuwa khiyaafatada allah noogu dhiibo kuwii ardalana ilaahi subxaanahu watacaala allah naga kaafiyo wixii shartooda allah naga kaafiyo wixii khayr ummadooda khayrka allah waafajiyo meel kastoo jooga khayrka allah waafajiyo ilaahi subxaana watacaala umuurteena iyo madaxdeena iyo kuwa khiyaaftaa ilaahi subxana watacaala talada iyo khayrka iyo hoggaanka allah nagu dhiibo ilaahi subxaana watacaala ummadda khayrka allah waafajiyo dhibaatooyinkana allah ka dulqaado intaadana barwaaqa allah uga dhigo imtixaanada allah naga dulqaado dadka xanuunsan caafimaad allah siiyo inta dhibadhibka allah ka dulqaado inta xanuunsan xanuunka allah ka dulqaado ilaahi subxaana watacaala dunyadeena oo dhan allah barakeeyo duniyada muslimiinta allah barakeeyo dumarkeena allah barakeeyo ilaahi subxaana watacaala iimaan iyo camal saalixa ilaahi subxaana watacaala na waafajiyo khayrkan meel kastoo joogno allah na waafajiyo jazaakum allahu khayran sidaas u xaadirteen iyo sidaa u dhegeysateen iyo sidaa ugu soo qayb gasheen ilaahina subxaana watacaala kulamada khayrka ah meel kastoo joogno allah noo badiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin jazaakum allahu khayran waxaan mahad celinayaa odayaasha iyo culimada iyo wasiirka iyo shikaqa iyo dhalinyarada noo soo qaabishay sidoo kale wasiirkana iyo kelimad dardaarana qabanaya isaga khayr allah siiyo laba
inta badan waxaan maleynayaa sheekhan waxyaro